وراني إلهي بقى ما هذا هالكن سكوكين كنا دمانتين وجمان تلقي المانتين الله هذا لكن ده واي خصبتين لكن وان تكون احترامه ما دام أتين ضد أنا ضد كنا بري ما دام يدك لفتين وأتين مرة قرار عتق النص وشيء سما كو خصبنا إن عتقنا أن تحكي لنا بسم الله الرحمن الرحيم وراني هالكن وحن رباورتين أن هم بلي بلارن وقدروا مدحونا عصبة لدورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو واه مدحوني لحد وده مدحوينه وكود دعينا يعني لهاي حلكها لقوا يجمدي ولهاي كوس خراء وواحد هاي مدحوني وهري أغلبية بقول كي بدوري لحدنا لقوا دورته ومضونا وحي كارت فين سا expectation وين وهاي وحمرها إلهي كاجبرية إن إلهي حلكها كوا أسطره أنت كبعدي وحن ربا هالكننا نستغنى عن حنبليو كلي الله وقدره مدحوينها ولي حلك السياحية عبد الرحمن عرو مدحوينه لدورتي ولي حلك اللي مو وريقين لكن مدحوينها ولي جوجا ودنكا تلا السياحية ومصبح عبدي وده مدحوينه waxaan kugu hambaleynayaa doorashada quruxda badan ee aad qabatay waxaan qabatay laba doorasho isa saara tii hore waxaan kamid ahaa doorashadii aad qabatay dadkii ka soo baxay tan labaadna waxay noqotay doorashadii labaad ee ugu adkayd ee ugu fiicnayd ee ugu quruxda badnayd ee caalamka oo dhami wanaag iyo hambaliyo iyo quruxdii Soomaaliland iyo sharaftii Soomaaliland dib u soo celiyay ما هذا أنا إلهي كسر مدحوين هذيك أشكاله إن شاء الله هنا واحد نقدم تام مدحويني هورا دوان مركز حلقة كدكتو أدنى وقوهم بليين يا أنت هذا حكم كهيسينا معارضة هذاك بعض لكم أنت فهمتي دبرة يجي دلقات بعض موجسي أنا ونوح أنا هرجي فوق هذا الكبدنا وحنا سامحنا كل مدحويني إن شاء الله وخير إيوه وحنكون تشيني ريتاير نمو ونكسن وحنكلو إنا ربعنا هالكن ما هاد نقبل على إنا نقول شيء ديو قدوميها كوميشن كا iyo dhamaan xubnaha uu hogaaminayo oo run ahaantii markii hore dad badan ay lahaayeen waa niman dhalinyaro waa arag maaha laakiin ay qabteen the best election Somaliland history oo ah doorashadii ugu quruxda badneed ee Somaliland ka dhacda gudoomiyaha iyo tiimkiisaba waa hambalyeynaya inta ka bacdi waxaan kaloo ina hambalyeynaya shacabka Somaliland oo doorashadaasi maxay tole si qurux badan codkooda u dhiibtay oo nabadgelyo leh intaasi waa mahadnaq أنت كبعدي هذا الكيك وحنا كسوق بجميدونا وحي كلوا دي ويدين دون تاني هالمد مدحونها السومال لأن هذا مدحونها للدورتي وده مدحوني وحنا قاعد صنيع مركز على الحلقة اللي وريكتو وعدوك تودك هنا الظروف هذا أيها كتشلا وحقوه الرياض قبطها حقيقة ابن قضان إن عيدك الله سعانود كحلا قرن كان مدق على مي نيو وانا يرى ذاك تهاي ciidan 400 oo qof ku dhow oo aan wali ilaa hadda laga daba tagin oo aan wax la iska weydiin qofka caadiga ah ee shakhsiga ah baadida yare ka lunta ama neef xoolo ama halo ama geel yaro ka lumay buu sidoo u deedeeyay buu cadow u galaa waaba sidadan oo bini'aadan oo la doorto oo qarankan la difaacayay oo aan maalin ciid wax iska weydiin oo aan la doonin waxaan kaloo madaxweyne ka codsanaya maxaabiista halkan ku xidhan harti haba magaca haba hadalka ka dhowri maayo harti halkan ku xidhan inaad si bilaal shuruuda ku sii deyso oo waliba inagu aynu ku horeyno sii deynta maxaabiista waxa ugu weyn aad qabataan ay noqoto in labada dhinac dadku ay nabadgelyo ku wada noolaadaan oo aan arinta la siyaasadaynin dadkuna maanta nabadgelyo u baahan yahay nabaduna wax ka wanaagsan ma jirto waxaan leeyahay madaxweynaha ku soo jeedinaya inaad arinta ka shaqeyso arintaas waa arin baahi weyn loo qabo anigu xog badan baan ka hayaa maalintii dhaweydee la doortay madaxweynaha cusub ee lagu dhawaaqay commissionku ay ku dhawaaqeen waxaan xogta ku hayaa in ciidamadeennii xabsiga la sacaanood ku jiray inay dabaal degeen oo ay farxad ku dabaal degeen maadaama ay isbedel dhacay waana yani ma garanay nimankaasi maanta waxay ku nool yihiin niman dhan oo qaran dhan u dagaalamay oo laga daba tagi waayey mushkiladaha ugu waaweyn ee jirana waxa weeye maalin walba halkan hooyooyinkii baa noogu iman jiray iyo carruurahay dhaleen kamaanan hadli kareen oo maalinta quraad hadasho waxa weeye waxyaabo xun oo fool xun baa la abuuro markaad ka hadasho wax yar oo dan oo muhiim ah markiiba waxa lagu shaambadinaya waa huwan iyo waa cadawgii iyo ilaahay baa horta maanta leh anu dadka ka raysan doona baan ahay waa cadawgii gudaha iyo waa huwan iyo insha Allah taala madaxweynaha la doortayna khayr fara badan baan u rajaynayaa intaana waxaan raacinayaa hal talo kale oo madaxweynaha cusub u soo jeedinayo madaxweynaha waan ogahay in gurigaagii la jaamgareeyay oo cid waliba ay maanta doonayso cidii irbad yar ee duna meel ku gelisay ama habeen ku orday inay xil doonayso dadkuna expectation aad weyn bay ka rajaynayaan anu hal recommendation baan bixinayaa madaxweyne wadankeenu madaxweynaha la doortay aan idhaahdo
waddankeena waad ogtahay oo wax ma beerto cuntada iyo daawadaba dibadda looga keenaa waxaan kugula talinayaa madaxweyne hay'adda dhawrista iyo tayada waa meesha uu waddanku ka dumay waa meesha meel kasta oo wax dhacay la soo mariyo dadkeenu imika dawo dhacay bay cunaan way aad u cunaan kansarkii baa daashaday yarkii hore jooganay yaro wanaagsan uu shaqaynayay buu ahaa ragga labintooda lama xaastiyo laakiin awood badan ma lahayn oo maalinta uu bariis yar u dhacay nin dawo dhacay soo qabta uu soo qabto dad madaxtooyada looga horeynayay dabeetana amar waxa lagu siinayay inuu sii daayo markaa madaxweyne waxaan kaa codsanayaa hay'adda dhawrista iyo tayada dadku uma yaqaanaan meel yar oo xil weyn uma yaqaanaan waxay u yaqaanaan xil yar oo kooban bay u yaqaanaan markaa madaxweyne waxaan kaa codsanayaa meesha inaad u dhiibto qof aqoonteedii leh kartideedii leh cidaan adiga hayna uu ka amar qaataana aanay jirin oo maanta ganacsadaha ugu weynee bariiska dhacay iyo kuwa dawada dhacay waddanka keena ee dhibaatada ugu faraha badan iyo xanuunada ugu faraha badan waddanka ku haya inuu soo xidhi karo laysanka ka qaadi karayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh haddaan su'aalo ku weydiiyo hore waxaad uga tirsanayd xisbiga mucaaradka ucid saad la socoto xisbigii ucid muu soo bixin oo dhacay dadku waxay is weydiinayaan xildhibaan axmed khaliif waqti xadirkan waa mucaarad baa soo muxaafid anuu run ahaantii waa ka xumahay inaan xisbigaygii ucid aan ka soo baxay maanta halkaan taaganahay i keenay platformka ay siiyey abaal weynna waan u hayaa guddoomiyahaygii iyo xisbigaygii horeba aniguna inta badan qof mabda'le baan ahay oo ma yihi dadka maalin walba baydhbaydha sababahan ololaha ugu jiri waayey anigoo arkay inuu xisbigaygu dhacayo ayaan haddana anigu la joogay marka maanta waxaa timi dawlad cusub dawladdaasina access baan u yeelan doonaa insha allahu oo anigu intaan meeshaan joogay halkan aan joogay 3 sano iyo 3 bilood baan xildhibaan ahay ninka madaxtooyada galay mihi maalin baan galaan u malaynaya maalin xildhibaanada oo dhan lagu marti qaaday laakiin hadda waxaan access u yeelan doonaa dhibaato kasta iyo wax kasta oo waddanka ka dhacay ama wax kasta oo aan u arkin inay qalad tahay inaan madaxweynaha tala ka siin karayo xisbina weli kuma biirin welina waa too early xisbigaan ku biiri doonana dib baan ka soo sheegi doonaa laakiin maanta ya maanigu midna mihi labadaaba saacadaan kula hadlayo waxaan ahay xildhibaan madax bannaan oo fikirkiisa iyo aragtiisa madax bannaan meeshaan ku biiri doono waqtigeeda waxaad ahayd xildhibaanadii ugu adkaa mucaaradda madaxweynihii hore weli xilka haya madaxweynaha cusub hadda la doortay mucaaradii waad ka bilaabi doontaa mise axmed khaliif wuxuu noqon doonaa maxaafid madaxweynihii hore horta wuu ka duwan yahay waa nin wax dhegaysta waa nin lala talin karo waa nin wax loo sheegi karayo umalan maayo dee welina dee xilkiiba lama wareegin goormaan dee ku kicinaa mucaaradnimo ku kicinaa hala wareega meesha muddo badan sanadka u horreeya waxaan u malaynayaa dee sanad ilaa sanadii barka u horreeya waa dawladdu xilliga ay honeymoonka iyo iska galaan ee la eego ee la dhowro waayo waxaa laga yaabaa in wakhti badan ay ka qaadato waxyaabihii dhammaayey waxyaabihii hore khaladaadkii hore dawladdu hore gashay ama waxyaabihii ay xumaysay baa wakhti laftigeedu fixid u baahan markaas too early in la yidhahdo waa la mucaaradayaa una malayn maayo anigu inaan marka u horeysa aan dadka aan mucaarada doono aan ahay laakiin anigu shakhsiyan waxaan ahay ama muxaafid aan noqdo ama mucaarad aan noqdo anigu inta badan waxaan aaminsanahay inaan dadka iyo dalkaba dulmigaan necbahay haddii wax dulmiya aan arko taladayda meeshay dee tegi karto waa u sheegayaa haddii layga maqli waayno dee bilaash dee danba waan idinku yeedhi dambayntii xildhibaane haddaan hal su'aal kuugu soo gebagabeeyo waad la socotaayo muddo waxaad ahayd xildhibaan doobiyo oo mucaarado si adag u dhaliila madaxweyne muuse biixi yidhaahdana mar beenaalaa been baad sheegaysaa madaxweynihii horena ugu yidhi ma la arki doona axmed khaliif oo mar kale doobiyo oo mucaaradad culus kala hor yimaada cabdiraxmaan ciro mise waxaa la arki doonaa axmed khaliif oo maslaxadda sidii xildhibaanadii muxaafadka ahaa maslaxadda golaha iyo ka shaqayn doonaa iyo xukuumadda oo dhinaca xukuumadda mar walba garab taagan sax iyo qaladba horta maslaxad haddii aan maslaxad doonayo maslaxado badan oo jaanisyo badan aniga way soo mareen aniguna halkan umaan iman markaan xildhibaanka noqonayo inaan danahayga gaarkaa ka shaqeeyo jaanisyo badan baa soo maroon danahayga gaarkaa ka shaqayn karayo offers fara badan baa jiray from the day aan anigoon xildhibaan noqon oo lay dhaarinba ayay waxaas bilaabmeen markaan waxaan aaminsanahay xildhibaannimadu waxay kaga duwan tahay wasiir iyo wax kasta xildhibaannimadu qofku xor buu yahay oo aragtidaadana xor baad u tahay waxaad ka warwaraysaa ma jirto xildhibaannimaduna anigu waa xiniyahaygana cid ma maahinay run baan kuu sheegayaaye wixii aan sax u arkana waa sheegaya wixii aan qalad u arkana cidna u daba fadhiisan maayo ama madaxweynaha cusub ha noqdo ama kii ka horreeya ha noqdo ama mid isaga ka dambeeya ha noqdo ama kuwo kale ha noqdaan wixii qalad aan arkaan waa sheegaya huwanta laygu sheegi jiray dadka qaar baa igu yidhahdaa nin dhulbaantaa waad jeceshay ma jecli anaaba dhulbaantaa dhubana u ahba aniga hooyaday iyadoo jaamacsiyaad la moodaya suuqaa lagu garaacay aniga dabeeta waxay igu kaliftay inaan TV soo fadhiistaan idhaahdo war hooyaday jaamacsiyaad ma aha war hooyaday waa hawiye waa habargidir
waa saleebaan ma garata hadda dabadeetana sababahan uga raysantana maahe aniga maahe macal faamiligeygi baa ka raysan doona waxan oo nabadgelyo heli doona biis heli doona cadowga gudaha iyo waxaan laga sheegay fikrad qaldan bay hedo kaambeyn lagu geliyay cadowga gudamihii qaranka maan anigu u dhashay tanaan leeyahay tanaa adeeraday iyo dadkaygu u dhinteen tanaan xoraysanay tanaan maanta dee waxa weeye xildhibaan ka ahay iyadan cashuurteeda cunaa cadow gudaha meel ali meel aan u soo maray anigu ma jirto anigoo qura maahe dee deegaanka laga soo jeedo dhamaa aan jiro cadowga gudaha macal madaxweynaha cusub baa cadowga gudaha la oran jiray marka waxaan malaynayaa taasi inay maanta bedelmi doonto inaan cadowga gudahana dib dambe aan cid dambe loogu yeedhay aan jir doonin waxaanan madaxweynahan cusub iyo gruubkiisana ka rajaynayaa iska daa dadka inay walaaleeyaan inay waraabaha iyo ariga walaaleeyaan baan ka sugi doonaa insha Allah taala xildhibaan mucaarado ka qaldamay isla intii mucaaradka ahayd maanta maadaama dawladda cusub tibi xildhibaan ay joogaan oo iyaguna laftooda mucaaradnimadu dhibkaas ay leedahay waxa iska joojiyeen maya mucaaradnimadu iyo maxaafidnimada labada mucaaradnimada wanaagsan maxaafidnimadu way iska yara dulliyeysan tahay marka adigoo lagu jiidanayo ayaan xitaa waxba kaa oran karaynin marka waxaan imika furan doonaa classes baan furi doonaa xildhibaanada maxaafidkii hore u furi doonaa mucaaradnimada lagu barto waayo ma garanayaan umana malaynayo inay mucaarad adag noqon doonaan laakiin niman saaxiibo aan nahay waxaan kula kaftamayey inaan classes furi doono mucaaradnimada lagu barto laakiin imika ma isleedahay xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro mucaarad weyn baad ku noqon doontaa oo wixii qaldan sheega mise muxaafadkii iyo nin xukuumadda jeebka ugu jiraad noqon doontaa kama rajaynayo inuu wax qaldi doono waxaan u rajaynaya wax kasta oo la qalday inuu sixi doono horta aniguna imika xildhibaan madax bannaan baan ahay walaa waddani baanan ku jirin walaa waxaanan ku jirin kaah baanan ku jirin walaa kulmiyaanan ku jirin waktiguna dee weli wakti badan baa hadhay waa eegi doonaa waa qiyaasi doonaa haddaan dee u arko inay dee danta qaranku meeshay jirto maanan u raaci doonaa insha allahu tacaala gudoomiyahaagii hore ee faysal cali waraabe uu taraasulay si weyn buu u hambaliyeeyey isaga maxaad leedahay gudoomiye halkan salaan kal iyo laba baan kaaga soo dirayaa aniguna aad baan kuu jecelahay weligeyna kuma ilaabayo abaal baad ii gashay ballantaan hore u qaaday oo ah inaanan xisbi kale iyo cid kale aanan calankeeda huwan doonin oo aanan ka dhex muuqin doonin ilaa inta xisbigaygu joogaya ama soo noqonaya ama la waayayo tiina waan ka dhameeyey oo waxaan aaminsanahay inaan ahay xildhibaanka qoray mabdi'iisii ku taagnaa ololihii iyo wixii dhacayay waad arkaysayna ninka weli dee ka dhex muuqday ee calankale ku jirayna maan ahayn dad badanna way ii soo jeediyeen laakiin waa ka diiday alxamdulillahi maanta dee intiisii ilaahay u qoray baa jiray muddadaa uu dee tacabka waddanka soo geliyeyna waxqabad fiican iyo wuxuu ahaa qof danta ummadda iyo danta qaranka ka shaqeeya marka guddoomiye aad baan kuu salaamayaa taariikhdaana ku xusi doonta baan leeyahay xildhibaanadu codob bay u raadinayeen ururka ay ka tirsan yihiin ama xisbiga wax codob ma u raadisay kaygan siiyeyba oo faysal cali waa codisay kii xisbiga iyo kii ururkaba faysal baan u codiyay anugu labadaba aniga ogin u dhacaya baan labadaba siiyey aniga waa meesha qura dee abaal igu lahayd maanta tusaale yar baan ku siinayaayo haddii maanta adigu reerkaagu isu kaa raacaanay reerka ugu laandheeraysan maanta aad tahay oo millions of dollars lagu ururiyo oo keligaa baa lagu sharaxayaa haddaadan xisbi haysan xageed la tegaysaa waa meelna anigu markaa anigoo maalin adag iyo duruufo adag ku jira anigoo macal degaankayga layga diiday anigoon cidna haysan buu ninkaasi garab siiyey markaa maanta axmed khaliif hadduu magac leeyahay iyo hadduu sumcad leeyahay iyo hadduu caan yahay haddii la garanayo cidda maanta dadkay bartay waa xisbiga u cid waana faysal cali waraabe khayr iyo nabadgelyo iyo wanaag baan u rajaynaa abaalkaana waan u hayaa